Maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland Engineer Mawlid Nuux Taani iyo maareeye ku-xigeenka isla wakaaladaasi Khadar Cali Carshe iyo weliba saraakiil sarsare oo ka tirsan wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland RDA ayaa safar iskugu jira kormeer iyo indha-indheyn ku gaala bixiyay inta u dhaxaysa Afmadoobe iyo degmada Garadaga ee galbeedka Sanaaga iyadoo deegaanadaasina ay mas'uuliyiintani si gaar ah u indha-indheynayeen buundooyinka oo dhammaanba inta labadaasi deegaan u dhaxaysa si rasmi ah u soo gabagaboobay waxaana halkaasi wafdiga maareeyaha iyo maareeye ku-xigeenka uga warbixiyay habsami u socodka iyo bardhamaadka buundooyinka injineerka guud ee wadada Cerigabo injineer Xuseen Maxamed Cumar iyo weliba injineero kale oo ku sugan deegaanadaasi shaqadu ka socoto buundooyinkoogii iyo ayshadoodii oo ah nidaam ahaan aynu dhammaystirnay. Waxaa kaloo jira aynu galaynaa markii hore dee waddadu waxay ahayd laba qaybood. Qayb waxa weeyaan qaybta highwayga, qaybna waxa weeyaan drainage biyuhu mareen. qaybta highwayga markii hore way maaragtay dawladdu iyadoon maaragtay hay'ado iyo cid caawisaan jiraad iyo aad baan ula yaabnay. dunida kale mashaariicda intaa leegda waxaa loo yeedhaa dad maalgeliyaal baa loo yeedhaa, injineeraa loo yeedhaa, wixii ugu weynaa ee jamhuuriyadda Somaliland intay jirtay la qabtay iyadoo isku tashi la sameeyay oo lala kaashan cidnaba adduunyada. Arrintaas waxayna tusaysaa inaynu qabsan karro wax kasta oo aynu isku dayno oo wanaag oo dhulkeena iyo dadkeena aynu qabanno. waxay noqonaysaa wixii rag u kaco rabbina aqbalo way rumow. dhankiisa maareeye ku-xigeenka wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland Khadar Cali Carshe iyo maareeyaha guud ee wakaaladaasi injineer Mawlid Nuux Ibraahim oo gabagabadiina hadalka iska daba qaatay ayaa dhankooda bogaadiyay shaqadan habboon ee sida wanaagsan ee howlkarnimada ah muddada yar loogu soo afmeeray. waxay sidoo kale bogaadiyeen mahadcelin ballaaran hawada u mariyeen madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah mas'uulka awoodda koobaad saaray inay si dhaqso ah qaranka Somaliland uga soo gabagabowdo wadadani baahida weyn loo qabo. had bay noo tahay in maareeyuhu noo yimaado iyadoo shaqadii halkii ugu wanaagsaneed ay marayso gacantana ay ku hayaan shaqaalihii mashruucu. mudane maareeye sidaad ka warhaysaba waddada tan waxaa gelayay 52 buundo 52kii buundo saaka way dhan yihiin. waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadnaqo. dhowr iyo 30 horey u dhammaadeen 9 aanu 3 bilood ka hor aynu dhagax dhigaynayna saaka way dhanta. wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadnaqo. 19 dambe oo ay ku hayeen 2 shirkadood oo la kala yiraahdo Arkon iyo Alnafura runtii si milga iyo maamuus leh bay uga soo baxeen shaqadii. anaguna waa ku kurmeeraynay waanu ku daba jirnay wixii tala iyo toosinana waanu la joognay. mashruucan 19 buunda ah oo aan oran karo waxa ku baxay nus milyuun. taasi waxay tusinaysaa sida dawladda tan uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi sida ay mashruucan uga hagar baxday. nin ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo la dawladdu ma dhaafsiisnaa sheekh. runtii arrintaasi waxa weeye waa arrin qaranka kan 30 sano jiray siyaadada ceeb ku ah. waa arrin waxa weeye waxyeello ku ah mudanaha ku hadlay in la yiraahdo dawladda Somaliland ma dhaafto sheekh. waxaynu ogsoonnahay wadarteenba dalka inay soo mareen abaaro, inay soo mareen cudurro aynu caalamka kala sinnayn oo mashaariicdii horumarinta in badan oo ka mid la joojiyey. haddana madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay goosteen mashruuca waddada Cerigabo Burco inaanu mar qura istaagin. mashiikh bay ku taallaa waddadan iminka aynu joognaa mise waxay ku taallaa Saraar iyo Sanaag iyo Togdheer qaybo ka mid ah. taasi waxay markhaati ka tahay hadalka uu mudanahaasi ku tiraabay inaan wax laaliyo xaq jiraan jirin oo ay tahay cadceedii oo la doonayo in sacab lagu qariyo
ninkii gabayaga ahaa carabeed waxa uu yidhi qad tunkiru alcaynu dawa ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu طacma almaa'i min saqami waxaa laga yaabaa ishu inay dafirto fallaadhaha qorraxda oo tidhahdo qorraxdu maanta madooba bukaan isha ku dhacay aawadeed qorraxdii way jirtaa laakiin ishaa bugto aan arkaynin fallaadhihii qorraxda carabkuna waxaa laga yaabaa inuu inkiro biyaha macaan dhanankoodii gobolka saraar inaan wax caafimaad la yidhahdo ka shaqeeya aanu jirin inaan ambalaasi joogin waxaan u caddaynaynaa bulshada reer somalilan gobolka saraar waxaa jooga 3 ambalaas sidee loo rumaysan karaa baarasitamol oog ma taallo wax aad iyo aad xaqiiqada uga fog saakan waxaan la hadlay guddoomiyihii degmada oog waxa uu ii tilmaamay mchku inuu 24 saacadood u shaqeeyo oo tiimkaasi aanay ka seexanin ayuu ii xaqiijiyey isaga iyo guddoomiyaha gobolka saraar oo labadaba aan la xidhiidho ahayd kormeeradan u imaado shaqada ka mid ah waxaan kormeerayay shaqooyinkan qorshaysanay sanadkii 2022 kala du gabagabay yahay insha Allah maxaa ka qabsoon maxaa soo harsan sida injineerka guud ee mashruucu sheegay sanadka dhamaaday waxa ilaahay mahadiya inay u qabsoomay mashruuca oo noo hirgalay 27 kiiloomitir oo daamra iyo tiro ku dhow 60 biyasaar oo isku jira noocyada kala duwan ee biyasaarada noocan iga dambeeya pipe culverts iyo airstripyada amba meelaha kale muudooyinka jiifa Soomaalidu taqaano waxaan boogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad shaqaalaha wakaaladda horumarinta wadooyinka meel kasta oo joogaan khaasatan inta mashruucan gacanta ku haysa waxaan ka mid ahaa shaqaalihii bilaabay mashruucan waxaan aqoon u leeyahay maraa oo mari jiro ku wada mari jiray inahan isbedelka ay ku samaysay wadada iyo sida deegaanka xitaa u noolaaday qof kasta oo meesha mari jiro ka marag kacaya wadada markay qaybtii hore dhamaatay sanadka bilowgiisa waxaan laga degan tahay la gar adag haddii la yiraahdo biyasaaradna oo dhameystiran yihiin faceka labaadna wuxuu noqon doonaa gar adag la ceeriga baynaha dhiman biyasaarada wadaduna badankeedu waa dhameystiran maxamed gumburi telefishinka caalamiga ee bulsho garadag